waxaa maanta magaalada Hargeysa lagu qabtay tartanka orodka loo yaqaano Somaliland Marathon oo ah laba qaybood halka qaybta koobaad ay tahay 42 kilomitir iyadoo qaybta kalena tahay 10 kilomitir waxaa tartankan ka soo qayb galay dhalinyaro isugu jirta rag iyo dumar iyo ajaanib kuwaas oo ka qayb galayay tartanka sidoo kale tartankan waxa iba furay wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha Jamhuuriyadda Somaliland wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Jamhuuriyadda Somaliland waxaana xusid mudan in tartankan maalgelinteedu ay lahayd shirkadda Dahabshiil ugu horeyn waxa halkaasi ka hadlay oo ka warbixiyay ahmiyadda uu tartankani u leeyahay dhalinyarada Somaliland wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha Jamhuuriyadda Somaliland Boss Mire Maxamed waxaana hadaladiisii ka mid ah sida tan Sidina Maxamed mudane wasiir oo ku filanay adiguna soo gaaraysid waxa halka ka socda maanta waad ogeyd labaad nagala shaqaysay orodka 10 kilomitir ahaa iyo marathonkii oo 42 kilomitir waxa ordaya 30 ajaanib baa ku jira 300 oo nimadeena baa ku jira kala 42 baa ku jira aad bay ugu socotaa sidaynu ugu talagalnay quruxdana waad arkaysaa meesha waxa ka soo jeeda halkan waxaan uga mahadnaqayaa dhammaan cidii nagala geysatay oo wax ka contribute gareysay oo ay kamid yihiin Dahabshiil Group oo ay kamid yihiin Mrs. Adna aadan dhaqtaro maxaan barashadeedii waxeedii oo militariga siisa noola taagan iyadoo maalin walba SPC baariyaanaha uga mahadnaqayaa sagalsad baan uga mahadnaqayaa dhammaan saxaafadda uga mahadnaqayaa ila taagan uga mahadnaqayaa shaqaalaha wasaaradda oo dhan agaasimayaasha iyo agaasimaha guud iyo waxba wada joogeen halkan oo aad u shaqeynayeen waxa ma hadda ugu badan aanu halkan horaan uga siisinay dhamaanteena aanu isku raacsanahay wasaaradda arrimaha gudaha wasiirkeeda jaranka ciidanka booliiska oo noola taagan dhinaca kalena waxa isna goobtaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Jamhuuriyadda Somaliland Maxamed Kain Ahmed oo dhalinyarta Somaliland kula dardaarmay in ay ilaaliyaan nabadgelyada qaranka Jamhuuriyadda Somaliland aad marka ugu horeysa hambalyeynaya sidii wasiirku u sheegay dhammaan shirkadaha kambaniyada hospitalka adna aadan ee gacanta ka geystay qabanqaabada iyo barnaamijyada tartankan ayaan aad iyaga noo hambalyeynaya sidii wasiirku u sheegay way noognahayo tartan 10 mitir iyo 42 kilomitir ayaa maxaan ku raahday maanta la ordayaa tiradii uu inoo sheegay ee ajnabiga ahayd faraha badnaydna way ka qayb galaysaa waxa iyaduna aad iyo aad u fiican in hablaheena kuntoneeyihiin ay ka qayb galayaan ay tartankan ku jiraan arrintan magacaygu waa Maxamed Xuseen Axmed oo ka tirsan ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Somaliland gaashaan aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan ku guuleysto tartanka 42 kilomitir waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa taliyaashayda iyo tababarayaashayda ila soo dadaalay halka ay soo gaarsiiyay waxaan leeyahay aad iyo aad baad mahadsantiin iyo ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Somaliland ما شاء الله والله إن كستود أرد كويسكات كهدنا وحنسك فيلنا هاي أبو إن كستود أرد تبغى وحول بود فيلن كرتها مركان واحد فيلنا لبعض بسوق ليسا ما شاء الله الله يقول لي magacaygu waan hene Mukhtaar Cabdilaahi aad baan ugu faraxsanahay mar labaad kaalinta goobaad hablaha u galo tare hamigeygu inta uu ka sii weeyay madaxweynaha iyo wasiirka ciyaaraha waxa ka codsanayaa tartamada lagu qabanayo Djibouti inaan ka qayb galo ay ogolaadaan وياسر أحمد الله ياسر رشكة تلفزيون كصاحب بقالة هرقيسة